بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داود يلا halkani waa telefishinka caalamiga SBC xaruntiisa labaad uu ku leeyahay magaalada Muqdisho waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka SBC oo ah barnaamij toddobaadle ah toddobaadkan wuxuu idinkaga imaan doonaa xafiiska aan ku leenahay magaalada Muqdisho waxaana toddobaadkan marti inoogu ah Salaad Cali Jeelle oo ah siyaasi Soomaaliyeed dhanka kalena ah gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiga Salaad Cali Jeelle ugu horreyn telefishinka SBC ku soo dhawo anagoo ka mahad celinayna waqtigaada qaaliga aad u mahadsantiin runtii SBC waa telefishinkayga waa meelo badan aan marar badan isku aragnay runtii waana telefishinka soo jeeda Puntland oo runtii ma taqaana hawl weyn u haya qaranka Soomaaliyeed marka inuu xarun ku leeyahay magaalada Muqdisho kana howlgala muddo fog aad iyo aad ugu mahadsantiin waana soo dhaweynaa imaatinkaadii ugu timaadeen halka waa mahadsantahay siyaasi anagana sidoo kale ku mahad celinayna wareysigan hadda ugu galno su'aasha koowaad siyaasi sidee kula muuqataa xaaladda dalka si guud amniga iyo dhaqaalaha iyo horumarka iyo waxyaabaha ugu dambeeyo dawladda qabatay sida maxaabiis in la soo celiyo ama in yaani hawadii Soomaaliya dib loo soo celiyo iyo dhaliilaha dawladda inta ay leedahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين runtii dawladdaani hadda muddo 2 sano ay shaqeeysay runtii arrimo muhiimana way qabatay annagana runtii waxaan aad u jeclaynay inay hana qaado oo ay dalka qof iyo codkiis ay gaarsiiso runtii hadda dagaal adag ayaa lala galay oo ah dhinaca gudaha iyo dhinaca dibaddaba marka aad iyo aad ayay marka dawladdaani 2 sano hore meel fiican ay wax keentay haddana waxaa muuqata in aad iyo aad ay argagixisadu ay culays weyn soo saartay runtii haddee waxaan isleeyahay damiin fara waaweynaa wax loogu dhigaayo Soomaalidu kuma ahmaahdaay hadda dawladdu argagixisadu inaynan cid u naxariisahayn oo ay dadka Soomaaliyeed ay ma taqaanaa ay meel kastoo joogaanba inay xasuuqaan oo yaan nool ay dadkii u leeyahayaan markay dawladdu aragto runtii waxaan ka rajaynaynaa marka tilaabada ku habboon inay qaado doonto bilaha nagu soo aadan iyo sitimaanada nagu soo aadan runtiina anigoo dawladda ka warqaba runtii waxaan ogahay inaynan markaan wax ay hagarsayso haba yaraatee aynan jirin waxaan rajaynaynaa marka arintaasi talooyin badan iyo arrimo badan iyo waxaan loo dul qaada karin oo ka dhaca magaalada madaxda inay ma taqaana argagixisaduna cawaaqibkeeda ay heli doonto tilaab ku habboon laga qaadi doono saasaan rajayahay waa gartay su'aasha labaad waa sidee xaaladda amni ee dalka waqtigan anagoo og inay qaraxyo dhacayaan wadooyinkan ay xiran yihiin siyaasi runtii saadka warqabtaba gudoomiyaha gobolka ayaa ku dhawaaqay in hakad la geliyo arrimaha ma taqaanaa gawaarida inkastoo hadda ay dadku ay ma taqaanaa weli aan si buuxda aan loo stop garayn haddana arintaasi waxa keenay waa welwelkii iyo qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii maalintii ugu dambeysay ka dhacay makhaayadii halkan ku tiilay iyo wixii ka horeeyaba marka waa wax ay keentay duruuftu ama ay keento ma taqaanaa jawiga hadda ay ku sugan tahay dalka uu ku sugan yahay ama caasimadu ay ku sugan tahay ujeedada laga leeyahayna waxay tahay in arintaasi laga hortago oo arintaas la stop gareeyo kadibna ma taqaanaa in aynan dib u soo noqon arrimahaasu ay ma taqaanaa la suurto geliyo sidaasay ku jihaysan tahay waxaa kaloo jiroon ogahay inay socdaan shirar golaha wasiirada ay u socdaan arrinkan marka in wax laga bedelo
ayay arinta ay ku qotontaa runtii marka waxay u baahan tahay in marka gacan lagu siiyo iyagana ma taqaanaa wixii dhaliilahayo la dhihi karana waa la dhahay hase ahaatee iyaguna wax ay arki karaan oo markaas mas-uuliyadooda ma taqaanaa saameynaya oo dadka ay ka wakiilka ahaayeen oo dhibaato weyn loo geysanayo ayay arkeen marka waxaan isleeyahay fadhigay ka kacayaan aad iyo aadna waxaan u rajeeyaa inay bilahan soo socoto tilaabadii ku habboon ay argagixisada ka qaadaan amniguna runtii waxa waaye waxa lala dagaalamayo argagixisa waaye argagixisada marka lala dagaalamayo marka waxay u baahan tahay in dowladda iyo shacabku iskaashadaan misaal ahaan informationka inay dowladda gacan laga siiyo informationka marka aayad quraan aha waxay dhahaysaa waidaa jaaahum haddii uu u yimaado amran oo min alamni amniga ku saabsan waidaa jaaahum amrun min alamni amniga waxaa jiri jira xilligii oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waad og tahay dagaalada markaad yar tahay ama aada hadda islaamnimadii hirgelinteeda oo ku howlanaa dhibaatooyinka ay gaaladu ay mataqaanaa ku qaban jireen ama ay ku dhibaatayn jireen marka munaafiqiintana waad og tahayo muslimiintay mar walba la socdeen oo iyagay ka mid ahaayeen oo hadde munaafiqu sidiisaba mar walba muslimku ka tirsan yahay oo ku dhex jiryahay marka haddii arrin ay timaado amniga ku saabsan ama khawf uu yimaado waidaa jaaahum amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bihi way faafinayaan waxay leeyiin waa la baaba'ay waa la jabay saasay naqatay muslimiintii waa dhimatay meehaasaa laga soo galay waa laga adkaaday dadkii khalkhal gelinaya marka adaacuu bihi walow ruduuhu ila rasuuli hadday rasuulka u celi lahaayeen oo warka markay maqleen ay rasuulka u gey lahaayeen oo rasuul allow saanaa jirta ay dhihi lahaayeen ama wa ilaa ulil amri kuwa amarka u saaxiibo hadda annaga madaxdeen oo kale dowladoo kaleetood ilaan hadda ma og tahay rasuulkii madaxdaa bedish oo waxaa waaye dadka mas-uuliyadda sare ummadda u haaya abosishinkii ku jira lacalimahu aladiina yastanbiduunahu waxay ogaalayeen kuwii raacraacayey khabarkaas raacraacayay oo dadka tirada badan waa shacabkoo kale waxay ogaalahayeen waxay yihiin waxaa u sheegi lahay madaxda iyo shacabkuna waa isfahmi lahaayeen markaasaa cadowgii khalkhal muusan geliyeen ummadda marka hadda waxaa looga baahan yahay marka dadka Soomaaliyeed inay mar walba ay suurto geliyaan khabaar hadday helaan amniga ku saabsan ama dhibaato ama cabsi ay timaado in markaas madaxda ama dadka amniga ka mas'uulka in khabaarkaas la siiyo iidoon idaacadaha laga deyno aan la marin habaabin dadka markaas waxaa suurto gelaya wax qabadkii marka arintaas waxaan uga jeedaa marka wa ilaa ulil amri minhum la'ali yastanbinu walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu hadayna oonan ilaahi fadligiisa ayna ahaalahayn la tabactumu shaydaana ilaa qaliilan wax yar moogi inta kala shaydaanad raaci lahaydayna uu ilaahay leeyahay marka waxaa loo baahan yahay in shacabka iyo dawladdu iska kaashadaan markaas shacabku marka shaqo xumaha dawladda ka aragyo markaas oo sheego oo dawladdi sidii aan ka rabna noola shaqeymee amnigii in wax laga qabtana dawladdu gacan ugu siimee inay yiraahdeen la rabaa laakiin haddii marka ay soo baxdo warar argagixisadii ka farxinaya oo argagixisadii inay libin gaarta cadaynaya waxaasoo dhan dadka ay niyad jebinayaan waxaana loo baahan yahay dadku inay adkaysi badan ay yeeshaan si looga adkaado kooxdan ka timiday dibadda oo argagixisada oo nala ku soo waariday oo nala ku soo xawilay inaan ka adkaano waxay ku xirantaa inaan iskaashano siyaasi dhanka kale markaa ka eegno
xirnaanshaha wadooyinka iyo amniga waxaa moodaa inay isku xiran yihiin yani sida ka dawladda hadalku dhigeen marka maxaa yani dadkan maatida oo masaakiinta oo shaqeysanaya wadada looga xiraa xeelad kale miyaysan jirin iyadoo amniga la sugaayo haddana in dadka wadooyinka loo furo wadada xirnaamayso mana macquulna maahan inay iska xirnaato laakiin waad ogeeda toddobaadadii lasoo dhaafay waxay noqotay in argagixisadu ay jaanis hesho ay si isdaba jooga ay u waxyeeleyso shacabka Soomaaliyeed taas marka in la istoob gareeyo si xeelad kale oo iyaga lid ku ah loo keeno ayay la xiriirtaa ma ahan mid oo joogta noqon karta ma ahan ee waa mid qorshe looga leeyahay amniga lagu sugaayo waana loo furi doonaa shacabka waa khasabtaas laakiin goobaha baabuurtan qaraxyada ka soo baxaan ama laga soo abaabulo dad shacab ku nool laamigay soo maraan waxa wada ognahay muddo sanad ku dhawaad xaafadaha dhan way xiran yihiin degmooyinkan gobolka Banaadir dhan marka dhaxmarayso xaafad walba dhagax lagu xiray laami in la soo maray baabuur walba ku qasab yihiin checkpoint walbana askar taagan sidee marka qaraxaas inuu ku soo maro goob maqaaxi ama meel in la geliyo shacab looga dhameeyo waxyaabaha oo aan macquulka ahayn ay kamid tahay maxaa yeelay haddii xil lagugu aamino amniga ku saabsan ood xilka hayso waxa xilka lagugu dhiibay inaad shacabka badbaadiso waa inaad marka aad adigoo waajibkaaga aan gudahayn inaad xilka sii haysato waa arrin macquul aan ahayn marka dawladda waxa laga rabo marka waxaa waaye dadka mas'uuliyadda haya amniga iyo meelaha lamid ah oo mar walba adiga qof walba mas'uuliyad gaar ah haysan laakiin hadda amniga mar walba ugu muhiimsan dadka ka shaqeynaya waa dad karti leh inay noqdaan ammaanana guda kara marka dawladda horena waa ugu baaqnay haddana waa ugu baaqaynaa inay dadka ku habboon ay busishinadaas ay geyso runtii haddana waxaad ogtahay haddee maalintii dhameeday saldhigyada booliiska waa lagu bilaabay in mataqaanaa qaar laga qaado qaar cusubna la keeno hase ahaatee taas kaliya kuma filnee meesha xilka amniga loo isticmaalayo qofkii ku habboonay ammaano ahaan iyo karti ahaan inay geysaa laga rabaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay awood u leeyihiin inay qofna xilka ka qaadaan qofna magacaabaan qofna xilka ka qaadaan waana waajib saaran iyaga waxaa laga rabaa marka inay waajibkaas gutaan waa arrin looga fadhiyo waana arrin haddii ay iyagu saas yeeli waayaan iyaga reaction ku keenaysa oo aan ku habboonayn maxaa yeelay qofka xilka muxuu u qaadaa waa su-aasha taal waa inuu shaqada ka soo baxaa waayo wuxuu u qaadaa wax kaloo laga rabo oo uu dad u anfacayo ma jirto waa inuu waajibkiisa gutaa taasna waa mar horena waa ugu baaqnay waana rajeeyaynaa in arrimahaasu sida ugu degdegta badan loo saxaayo waana arrinta aan hadda loo kala kacayn oo ay madaxdu ku mashquulshantaan isleeh waan gartay su'aalaheena hadda gudaha u sii galno siyaasi toddobaadkan kaliya 13 qarax in ka badan caasimadda ka dhacday marka ma habboonaa lahayd yani in iyadoo amniga iyo wadooyinka sida loo wada adkeeyay awad ognahay haddana yani in caasimadda qaraxyo ka sii dhacaan maya hadda waxaad ogtahay hadda shalay waaye waxa la soo rogay in mataqaanaa bandow ahaan oo guddoomiyuhu uu ku dhawaaqay taas oo marka horeyba aan hadda kaaga waramayo si hawshi ku habbooneed loo qabto gogol dhig u ah maxaa yeelay golaha wasiirada waa shirsan yihiin ma kala kacaan qorshe guud in arrintan loo sameeyay ay u baahan tahay inayna soo laabanay u baahan tahay marka si degdega in arrinta looga gaarsiiyo loo stop gareeyo wadadii ay qaraxyadu soo marayeen na wax laga bedelo oo markaasi mataqaanaa sida ugu dhaqsaha badan arrintaas loo stop gareeyo ayay tani hordhac u tahay laakiin shaqadu
waa dhiman tahay waana midda laga wada sugayo shacabka Soomaaliyeed ay looga fadhiyo marka taas inanka war dhowrnay ku fiicanta laakiin hadda midaas marag ma doonto waxa dhibaatada keena oo jidadka la xire keena oo in bandow oo gubernatooruhu ku dhawaaqo keenay oo baabuurta la stop gareeyo waxa keenay waa wixii dhacay ka jawaabintoodii marka wixii dhacay toddobaadkii la soo dhaafay marka isma weydiiyeyno hadda isha maragtaayad ma ogta ma isha macalinka laakiin hadda waxaan la rabaa tagtadaaya timaada qaba la yiri waa waxa laga rabaa inay ku cibro qaataan waa sax laakiin siyaasi soo ma haboona lahayn Soomaaliya muddo dheer ayay qaraxyo ka soo dhacayeen marka labadii sano ugu dambeeyay hadda ka soo qabana tusaale qaraxyadaas oo intaas oo qaraxyo soo dhaceen maxaa cashiro laga bartaa isleedahay runtii nimbahe waa aragtidiisi laakiin hadda dawladdan ma ogtahay muddo 2 sano ay jirtaa muddadii 2 sano qaraxyo dhacayeen muddadii 2 sano ahaydna inta badan markii laga reebo kii ugu weynaayo adiga umada galaaftay oo soobe oo wax walba isku fuuqsaday markii laga reebo waa la tacaalayeen inkastoo marar badan inta jidadka la xiray ay dadweynuhu qayliyeen oo jidkana la ka xirin la yiri wadana dhinac kale lagu dayay muhiimada oo mar walba maqneed waxa waaye in argagixisada goobteeda loogu tagi diiday oo lagu weerari waayay meelaha ay ka soo foofayaan arintaasan marka maqneeday waxaan isleeyahay marka la fiiriyo dhinaca militariga iyo dhinaca mataqaanaa hadda xaaladda aan ku suganahay tilaabta ku haboon waxa waaye in argagixisada goobahooda loogu tago dawladuna ay markaan duulaan qaado taasa markii hore ka maqneed marka taas waa hadda waxa looga fadhiyo waa gartay siyaasi dhanka kale dhawaan ciidamada dawladda waxay ka cabanayeen mushaar la'aan dhanka kale madaxda qaranka way hadleen waxay sheegeen in ciidamada mushaar la'aanta ka cabanayeen inay yihiin kuwa aan diiwaan gashaneen arrinkaas sidee u aragtaa marka arrinkaasi horta runtii aad iyo aad ayaan xodogaal ugu ahay ciidamada sidaad ogtahay askarigu waagi hore wuxuu ahaa lacagta gacanta loogu geey jira marka waxaa meeshaas marka soo geli jiray ciidan aan jirinna in ay waa jiraan la yiraahdo ciidanka joogana sidii la rabay ay wax u heli waayaan waxaad ogtahay arrintan hadda waxa keena waxaa koow ka ah in la diiwaan geliyo oo qof number loo sameeyo sawirkiisa la geliyo daatada kadibna oo markaas ugu soo dhaco akoonkiisa khaaska ah oo loo sameeyay isagoo markaas qof lacagtiisa gacan ku keenaysa aysan jirin oo marti uga yahay arrinkaas markii lagu dhaqaaqay waa la soo tira koobay hawshaas waa lagu dhaqaaqay hawshi mar haddii wax la tira koobayo waad garan kartaa waxaa ka dhalanaya oo markaas mataqaanaa ka abuurmaya amba ka ratibmaya systemka in la fadhiisiyo systemkii fadhigiisi marka askarta kamida ayaa wax u soo dhici diiday oo markaasi mataqaanaa mushaarkii waayey markuu askarigii waayey waxaa khasaba marka askarigu hadduu waayo askariga ag fadhiyana uu qaato riboorow gelaa taliyihiisa unuga u gelaa wuxuu leeyahay aniga waxayga waa maqan yihiin taliyaha unugana taliyaha kooxda uu soo gudbaa ilaa ay markaas taliya urur soo martoy taliya guuto tagtoy qaybta tagto taliska guud u gudubto process dheer waa process kaas dheer marka askarigu oo mataqaanaa bil iyay qaaday wax ka badan processkaas markii uu wax ku waayo marka waxa waa shaqo joojin uu sameeyaa maxaa yeelay waa baahan yahay askariguna sidiisaba waxa waaye wax lagu shubto oo soo saara haday tahay risaas iyo haday cunto tahaba hataa haduna risaas aysan kuma dagaali kariyo waa inaad ku shubataa qasnadiis ra'iisul wasaaraha oo arrintaas ka hadlay
ama xukuumadoo ka hadasho iyaguna amar waxay bixiyeen in la siiyo askari kasta lasoo tira koobo la siiyo raashinkiisii iyo lacagtii mushaarka ahay dhexdii marka khaladaa ka yimid oo sidii la rabay uma gaarin iyaguna amarkii waa bixiyeen hantidiina waa bixiyeen arrinkaas marka wuxuu keenyay marka isfaham la-aanaa ka abuurma askariga wuxuu ogyahay inuu baahan yahay ra-iisul wasaarihi dowladdiina waxay ogyihiin inay bixiyeen arrintaas waa midda marka iyamahan markay soo gadoodeen arrinkaas dibaa loo saxay askari kasta xaquuqdiisa in la siiyaa amar lagu sii bixiyey waana sii socotaaho waxaa la rabaa wax rasmiya oon mar dambe dhacayn inay noqdaan marka arrinta ka dhacday ama ay ciidamada saameynta ku samaysay waa arrintaas oo misunderstandka isfaham la-aantaas dhacda maane dowladduna waxoodii waa u ogoshahay iyaguna shaqadoodii waajibkooda inay gutaan diyaaray u yihiin marka wax differenciyahoo kale ma aynan jirin anaa xodogaala salaad cali jeelle siyaasi waa tahay horeyna wasiir difaaca soo noqotay intaa ka wada dharagsannahay xog badanna ciidanka waa ka haysaa haddaa eegno ciidan aanan yani niid ahaan u dhisnayn ama morality ahaan u dhisnayn is leedahay amniga qaranka u difaaci karaa maya ciidanka waxa uu ku shaqeeya waxaa waaye higsigiisa iyo waxa madaxdiisa u sheegto maxaa yeele dadka sidiisaba wuxuu rabiyaa inaad moraalkiisa aad adigu dhisto waa shaqada ugu weyn oo laga rabo waxaa laga rabaa wasiirkaa laga rabaa waxaa laga rabaa taliyaha ciidanka waxaa laga rabaa madaxweynaha waxaa laga rabaa ilaa taliyo unug in subaxdii la siiyo askariga wacyigelin diiniya mid wadaniya oo soo kordhaysa waxa uu mustaqbalkiisu yahay iyo dalkiisa iyo dadkiisa inay isaga xil ka saaran yihiin maxaa yeele askarigu ma ahan shacabka lamid ma ahan wuu dhaartaa waxaa lagu dhaariyaa dalkiisa iyo dadkiisa inuu adeegayo marka askariga haddii moraalkaas la siiyo noloshiisana meel la saaro ayuu markaasoo waajibkiisa qaba kariyaa wixii laga rabana ay shacabka soomaaliyeed kala kulmi karaan marka taas waa waajib qaran waxa ugu muhiimsan oo soomaaliya in laga hirgeliye la rabana askarigaa ugu muhiimsan iyo shuruucda dalka inay hirgasho qaybta garsoorka oo cadaaladda iyo askariga haddii ay naqdaan dad waajibkooda guto dalku si fudud ayuu horumar ku gaaraa marka arrimahaas marka waa arrimaha oo annaga naloo kaga baa inkastoo askari dagaal ku jira oo mar walba xabad ku dhex jira oo argagixisadii ay maalin walba mataqaanaa ay dhiig bax ku wado aad ay u adag tahay maxaa yeele askarigu markuu dagaal ku jiro akhlaaqdiisa iyo disibliinkiisu sidii la raba kuma yimaadaan marka arrimahaasi waa arrimaha marka madaxweynuhu uu ugu horeeyo inuu arrintaas mataqaanaa uu gacan weyn ka geysto kuna mataqaanaa uuna si rasmiya oo uga warqabo waa gartay su-aashaas haddaa ka gudubno siyaasi dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir baa xalay way hadleen maamulka gobolka banaadir wuxuu sheegay in yacni howlgal la sameyn doono gurin loo gali doono gobolka banaadir 17 degmo marka waxaana laga sheegay warbaahintii oo iskugu jira ama TV ama raadiyo ama website wixii doonta ahaato arrimo oo intelligence ama amni ah yani oo xeelad ciidan howlgal sameynayaan in warbaahin loo adeegsado sidee uu kula muuqdaa runtii marka la dirisaynayo degmooyinka marka la dirisaynayo oo degmada misaal ahaan Shangaani oo kale hadaan ka soo qaado guri walba ma taqaana la dirisaynayo inta ku hooyanaysa la ogaanayo la tirakoobayo markaas waxa ay aad ay muhiim u tahay maxaa yeelay 10 guriba waxa way markaas qof ayaa ilaalin karta 10 tiriye marka arrinkaas wuxuu keenaa marka inay degmadii
shacabkeedii ay amniga ka qayb qaataan ninkii kusoo hoydo cawadana saldhigga la geeyo oo qofkii martiya saldhigga la geeyo saldhiggana la yidhaahdo qofkaana cawada ila jeefanaya oo martiyaho meel hebel iga yimid mas-uuliyadiisana anaa qaada buugga uu soo saxeexo gurigiisa uu u hooyo waa nuuca amniga rasmiga oo xasiloonida waxaa waaye ma ogtaha waxa la yidhaha amniga wuxuu keenaa markii laga shaqeeyo xasilooni mudma'inatan ou keenaa waxaa waaye marka dirisayntaasi kaanat aaminatan mudma'inatan magaalo aaminaheeda marka uu ilaahay ka warramaya inkastoo hadda inaan ku dheeraado aanan rabin amniga markaad ka shaqeyso xasilooni ou keenaa marka xasiloonidaas ayaa ka dhalanaysa waana mid rasmiyahoo la isku hadlay karo laakiin hadday wuxuu yihiin haddaan sameeyaha waana ka tegaa wax macnaaho weynay soo kordhay male laakiin hadday ku dhisan tahay guriga in la galo dirisaynta waxaa waaye waa midda weligay aniga aan ku taamayey oo dalkaana magaaladana amni looga soo saari karo salaadow su-aasheeda haddaa si kale kugu dhigo يعني أرنت شيء أدرسين تو أرن مهم وضد كلن يعني كدر سجين وأنا أرن يعني أمني واحد كذا لينكرت لكن سؤال إصلاح ده سكلا كوجودي كو معامل كقبل كبنادر الدولة ده وحي ورباهين تقلب ورباهين تكشجين أرن سر أو كأدن هول جلالة سمين دونه جوري إن يعني أو لو قال دونه مركب فرين نوع عاس فرين نوع عدرين يعني أو نك كلا أمني مركب لافيري إني أرجع حسد جوريه أي صلّيك كل هذا ونقولي xogtana loo hayn inay ka qaxaan ay keeni maxaa yeelay markaad saas dhahdo ninkii cadowga ahay oo gurigan deganay annada hadda adigu xog khaas ah aadan ka hayn cabsiyaa geli laakiin hadda dhahdo waa kugu soo wajahanayo haddana qalabkii raadihi TV-gii wixii marsiiso qof walba xogta waa helay hadda xogta waa helay laakiin asiga taladiisi waa isbedeli waxay isaga bedelay gurigi uu ku jiriyo hawsha ka qaadin raba in cawada la soo gelay ma oga soo ma marka baqdin ayaa cadowga ugu sugan inkastoo asigana dignin ay u tahay marka halkaas waxaa yaala marka hadba sida loo fikirayo iyo sida wax loo wajahayo marka ku xiran tahay hadii dawladdu marka aynan birita geli rabin oo aynan birita tilaabtaas qaadi rabin arrinkaas inay dhaxdo waa u fiicanta laakiin haday maanta ma geli rabto shaqada hadda dhaqaaji rabto inaynan hadlin u wanaagsan marka hadba qofka dhahaaya xeelada oo isticmaalayo ayay ku xiranta laakiin mar haddii aad dhaxdo guriyaan u gela waxay ka dhigan tahay cadowga dignin inaad siinayso si markaasi uu u baqo ugu wanaagsan inta laga heli karo su-aashaas hadday halkaas ku hakino siyaasi waxaa jirto anagoo gabagabadii ku dhow waqtigaadana ka mahad celinayna haddii labada su-aal ugu dambeysa u gudubno waxaa jirta dawladda mar walba inay dhahdo muhiimadda koowaad waxaa siinayna amniga waxay ku celcelisaa in muhiimadda koowaad la siinayo amniga welina shacabka sida xaqa marka loo eego weli yani shacabkana dawladdu way dhaliilsan yihiin marka arrinkaas bal ka waran horta amniga markay iyagu dhahayaan amniga sidiisaba ilaahaa soo hormariyay amniga sidiisaba waxa ugu muhiimsan quraanka marka aan dib u fiirino 49 mar mawduuc ayaa quraanka amniga looga hadla marka sidiisaba amnigu number 1 waay marka qof kasta oo dawlad naqata madax naqata amnigan muhiimad siiya inay tiraahdo meelay u dhaafta male maxay la amnigan number 1 misalan waxaad ka soo qaadeen neef xoolaa haddii oo man yahay baahiyuna hayso oo neefkaasi hadda lax ka soo qaad neef idaa ka soo qaad ee aad meel u dhigto caws iyo biyo
asoo naf ah oo mataqaanaa soo aaday meeshaas inuu cawska iyo soo aado oo noqdo haddii uu waraaba u jeedo biyihi macaba waa gadaalo u naqaa marka baahi kasta oo ku hayso iyo dhibaato kasta oo ku hayso haddii amni xumo timaado adiga wax meesha kugu yaalla ma jiraan marka tusaale ahaan waxaan uga dhigaa baahida iyo wax kasta oo ku haaya nafto hadday baahida kaala dhacan rabto waxay ku dilaa cadow haddaad ujeedda waa qaxe marka amniga marka saasay ugu qasban yihiin laakiin muhiimaddu maxay tahay inay amnigaas ay ka run sheegaan bisaa laga rabaa laakiin ilaa aynan shaqadaas gudan mar walba waxay joogaan amnigan shaqo ka qabayna meelay uga leexan karaan male maxaa yeele dowladnimada afar ka koob waa siyaasadda amniga ee siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada adeega bulshada haddaad amni haysato siyaasad waa ka maarantaa haddaad dhaqaale haysatana adeega bulshada waa ka maarantaa maxaa yeelay haddii aad amniga haysato siyaasadda ciddi kugula dhibto waa iska xire waa iska qabee haddaad amni haysato siyaasadda ciddi kugula cilaaqtanta tilaabaad ka qaadi kartaa marka muhiimadda koowaad waxay ugu celcelinayso amniga waa qodobka labaad haddii ay adeega bulshada ay dadku yidhaahdaan biyana rabnaa dhibaatana haysata iskuul ma haysan haddii yidhahdaan dad dhaqaale haysato wax loo dhagax dhigaad dhehe ha loo dhagax dhigo hadda waa xalee hadda u dhagax dhigaad leedahay baahidoodaad ka jawaabi dhaqaaliyaad haysataa marka mar walba labadaanaa u muhiimsan afartaas labadaanaa muhiim marka amnigu number 1 waaye marka qof dhaafi karta ma jirto halkaas ugu gudbaynaa waxaa haysanaa siyaasi 2 daqiiqo haysanaa wareysigana uu soo gabagabo waa ku mahad celinayna marka boqolaalka ama malaayiinta shaashada ka daawanaysa maxaa yani fariino u diraysa shacabka ilaamaha amniga iyo dawladda intaba runtii marka ugu horeysa shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa inay dagaalada sokeeye oo qabiilka ah oo meelaha qaarkood ka dhaca oo hadda ayaan dhaweeda cadala oo kaleeto iyo meelo lamida oo xiraale ay kamid tahay dagaalka qabaliga in la joojiyo maxaa yeelay cadow khatar ah oo argagixisa oo ay soo adeegsadeen wadamo khatara oo islaamkana lid ku ah oo misaal ahaan aan laga baxsayn misaal ahaan ninka shabaabka oo argagixisada wuxuu leeyahay irtiis salaada yaa uga tagaa oo hebel soo dilaa uu leeyahay yaa soomka alla dartiis uga tagaaya oo shaqadaas soo qabaa shaqa oo dantoodaas ay saas ku raadinayaan alla dartiis soon looga tagaa weligaa ma arag iyo alla dartiis salaad looga tagaa qoomkaasaa nala dirira annaga waxaa laga rabaa marka inay gacmaha isqabsadaan dagaalka qabaliga iska dhaafaan dalkooda iyo dadkooda ay meesha mataqaanaa ay u halgamaan dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqaa waxaa la yiri nimaad soortoon kaa seexan iyo nimaad sugayso oon soo soconaa adduunyada ugu daran nimaad sugay ku imaamaa nina waa soorta asoo inuu kaa tagiyaad rabtaa ma ogto sagootise ma baxay guriga iska jooga marti waayo aan kaa tageyn labadaas ugu daranaa le dawladda waa inay ogaataa cidaan iyada ahayn oo u maqan ummadda Soomaaliyeed ma leh waa inay cawa iyo maalin ay u soo jeedaa nasiina ay iska dhaaftaa wax ay haysatana sida ugu habboon ay u isticmaashaa libina ay ka kaystaa argagixisada qof iyo codkiisna ay dalka Soomaaliya gaarsiisaa intaasaan ugu baaqaa aad u sharfantahay وهاجك داود يلا جودهان أنت أصلا يعني جعلنا هنا كسوق بجبينه برنامج كني كلن كSBC أو تضوات كان مرتين وجوها سياسي صلاة على جيرة إحنا قدومية حزب من نمط الديمقراطية ده
toddobaadkan barnaamijkaas intaas ayaan jecelnahay inaan kusoo gabagabayno waxaan u mahad celinayaa mukhtaar cabdi aadan iyo cabdullaahi maxamed sheekdoon oo dhanka kaamirada iga caawinaya cabdullaahi maxamed cumar daacada dhanka farsamada barnaamijkan ka qaabeeyay barnaamijkan kan kiisa xiga intaan ku kulmayno daawadayaal sidaa i nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa mahadsantahay siyaasi